dowladda imaaraadku istiraatiijiyadda ay leedahay si ay dunidatan ugu yeelato maxaa la dhahdaa ta'siir iyo raad si ay ugu yeelato dowladdan imaaraadku maxay hadaf u ah dowrkeega hadafkeega istiraatiijiga adwaarteeda istiraatiijigii maxay yihiin istiraatiijical waxa weeyaan waxaan ku soo koobi sideed arrimood waana la soconaysiin exaambaladana waan bixinaa iyo wixii u ah mithaal kow waxa u ah kharaabin in la kharaabiyo wadannada in la kharaabiyo waxaa kow ka ah waxay ka sameeyeen libiya revolution baa ka dhacay qadaafi baa la eryaday dadkii revolutionka sameeyey baa si fiican wax u watay dowladda imaaraadka ayaa soo kiraysatay ciidamo ruush ah oo la kiraysto waxay adeegsatay dalka masar iyo sacuudiga waxay isticmaashay milyaaro lacaga waxay keentay intaas oo maleeshiyaad oo ciidamo madow oo afrikaana waddankii waxay ka dhigtay waddan uu ka socdo dagaal sokeeye waxayna isticmaashay nin xaftar la dhahdo oo ahaan jiray janan ka soo horjeeda qadaafi ilaa iminkana ka soo horjeeda deganaanta dalka oo ah nin haysta dhalashada dalka maraykanka marka dhahdo waxbay kharaabinaysaa التخريب وكلمة إنay dowladuhu kharaabaan inay ka shaqeyso alfawda alkhallaaqa in la waayo maamul oo dadku ay isku dhex daataan waa strategical ay ka shaqeyso dowladda imaaraadka ee uu madaxa ka yahay ninkan iminka madaxa ka ah ee inan odaygii wanaagsanaa ee zaa'id oranayay uu dhalay maxamed bin zaa'id dhahdo arrinta labaad استراتيجية اللبعض الدولة اللي عليها وحويان التمزيق إن دولتها اللي كلا جوجويو بربوريو يمن وحي صار عادي ذلك السعودية وكور رمي دون علاقات السعودية يمن تكن إمارات كان حياة وحي صار عادي الدولة ده السعودية وحي سميان عيدا يوب بحيان عيدا كبد بادة ذلك يمن تا مركي يمن لقب صدي عيدا كاس وصاق علي دولة إيران وحي سميستي عيدا مو حوصين الهضو ولو guulaysan waayay in la qabsado wadankii Yaman laakiin labadoodii baa kala socda Sacuudigu wuxuu rabaa in uu sameeyo system iyaduna waxay rabtaa system kale Imaaraadku inay sameeyso inay koonfurta waqooyi ka goyso maxay ujeedada kale leedahay halka dambe aan sheegi doonaa laakiin waa nidaam kala googoynta adduunka islaamka hatta wadanka Liibiya la dhahdo waxay ugu tala galeen in saddex gobol loo gooyo wayna lagama harinna waddanka la yiraahdo maxaan ku idhaahdaa Masar in 5 laga dhigo waddanka la yiraahdo Lebanon in 3 laga dhigo Suuriya in 3 laga dhigo intaba istiraatiijiyad lagaga shaqeeyo moosaadka iyo dawladda Imaaraadku ay hirgelisay tamziiq gogoyn wa talabaad 3 waxa ay la dagaalantaa waxa loo yaqaano isbedelada revolutionada dhacaya ee adduunka carabta adduunka muslimka ka socda ay shucuubtu xuquuqdooda soo ridanayaan iyo la dagaalansan tahay sidii Masar sidii Suuriya sidii Liibiya sidii Yamanta sidii Turkiga oo ka badbaaday inqilaabkii halista ahaa ee dawladdu ay sameysay marka dawladdan la yiraahdo Imaaraadku taasina waa saddexaad afar waxay la dagaalantaa waxa loo yaqaano al-harakaat al-islaamiyya dhaqdhaqaaqyada islaamka أما الله يقالنا الإسلام السياسي تانا دقال استراتيجية يكون جرتا وأفر شن وحيلة دقال انتا ثقافة إسلام كي معتدل كأ حق جرين دقن كإسلام كي وناكسل بي دقال استراتيجي كالا أيكو حيسا وحينا أديك ستا حركات كباطنقة باطنقة ومحي وحركات كخرافقة وحي أديك ستا حركات كصوفية سحد أهين منحرف كا waxay adeegsataa culumo ay u aragto inay yihiin culumo oo kuwa culumada rasmiga ana way la dagaalantaa okay azhar bay doonta inay sariiqadayso laakiin sheekh Ahmed al-Tayyib oo azhar xukuma waa fahmay kadibna waxay farahay ka qaaday oo waxay isticmaashay inay maaratay kuwa kale ay samaysato waana ogtihiin shiishaan baa lagu qabtay shir lagula dagaalamayo waxa islaamka saqaafadiisa aan ahayn saqaafada iyadoo ay ogoshahay waa afar arrinta shanaad waxay la dagaalantaa isbedel bulsho oo dhacda oo caadi ah taxawulaad ijtimaaciya dadku inay bulshadu ay isbedisho oo ay horumar gaadho dhinaca dhaqanka dhinaca siyaasadda dagaal bay kula jirtaa waa strategical way qoran tahay
arrinta shanaad toddobaad waxa weeyaan waxay la dagaalantaa waxay ku takhasustay in ay joojiso horumarka iyada dhibaya waa maxay horumarka iyada dhibaya waxaa ka mid ahaa meeshii la oran jiray canal de Suez markuu Mursi ilaahay u naxariistay uu isku dayay inuu 100 milyaar oo dollar uu geliyo si loo hagaajiyo meesha maartay canalka Suez oo ay u arkeen inuu iyada haddeeta uu cunaha qabanayo Mursi wuxuu u dhintay canalka ma aha waxan kale laga sheekeyn waxyaalada ka culus waa taa weey waxay joojiyeen cadan inay noqoto meel istaraatiijikaala oo adduunka horumarka way iibsadeen amba dib u dhigay waa kuwa kala dagaalamaya Djibouti waa kuwii qaatay waxay kala dagaalamayaan waa arinta Barbara waxay la dagaalamayaan waa arinta Puntland waxay la dagaalamayaan waa arinta Kismaayo waxay la dagaalamayaan waa arinta Musawac waxay la dagaalamayaan waa arinta Sawakin oo ku taala Suudaan waxaas oo dhan hadaf bay kala yihiin ah in la joojiyo inuu horumar iyada dhibaya oo ka dhaca mantiqada ma ogolo in la wada horumaro ee waxay ogol yihiin inay qaybin horumar gaadho iyada ah inta kalena iyada u adeegan iyada u shaqeeyaan okay ta sideedaad waxay la dhaqantaa quwadaha imperialiga ah ee caalamiga ah iyo u tahay dawlad functionality ah wadiifi ah ujeedadeeduna ay tahay inay dawladaha u shaqeyso si loo burburiyo maaragtay dawladaha islaamka ee soo kaxaya way u digtaa Pakistan Malaysia waxaad ogtihiin Malaysia ninkii hore Najib oranayay markuu Mahathir soo noqonayay milyaar lacag intay ka qaadeen iyo baano ku galiyeen wadanka Malaysia xadeen waxa weeyaan adduunka oo dhan bay ka soo guraan xoolahooda xaqan ay keenaan okay marka adwaarta istiraatiijiga ee dawladdan ay leedahay la yiraahdo imaaraadku waa taa weeyaan